Dhulka dowlad deegaanka ayaa shacabka uga digay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab iyo xoogagga Tigreega. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida gaashaanle sare Cabduqaadir Maxamed ayaa sheegay in ciddii lagu hela wax baalmarsan bayaanka xaaladda degdega ah laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Taliye ku-xigeenkan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxa uu kaga digay in guud ahaanba dowlad deegaanka lagu dhex qaato hub sharci darro ah sidoo kalena iska ilaaliyaan bulshada waxyaabaha baalmarsan sharciga isla markaana propagandada ku salaysan sida uu sheegay. sidoo kaleeto waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara isla markaana cid kasta oo amarkaas jebisa maamulka uu ka qaadi doono tallaabo adag. ugu dambeyntii taliye ku-xigeenka ciidanka cirka dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya gaashaanle sare Cabduqaadir Maxamed ayaa bulshada waxa uu kaga digay inay xiriir la sameeyaan Al-Shabaab iyo xoogagga Tigreega ee dagaalka kula jira ciidanka waddanka Itoobiya gaar ahaan ciidamada federaalka oo nooc walba iskugu jira. ugu dambeyntii taliyahan ayaa waxa uu u goodiyay cid walba oo u shaqeysa ama la shaqeysa shakhsiyaadkaas in gebi ahaanba laga qaadi doono tallaabo adag oo qaarkood ay noqon doonaan xabsi iyo ciqaab adag in la marsiyo. amarada ka soo baxay laamaha ammaanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa daba socda kadib xaalad degdeg ah oo laga dhaqangeliyay guud ahaanba Itoobiya markii uu xoogeystay dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo xoogagga Tigreega kuwaas oo qarka u saaran qabsashada magaalooyin muhiim ah oo dhaca waddanka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ayaana xaalad degdeg ah dhawaan kaga dhawaaqay waddanka Itoobiya. xaaladaas ayaana looga gol leeyahay in lagu yareeyo ama lagu joojiyo dagaalka culus ee u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo xoogagga Tigreega oo dhammaantoodba kuwa xilligan isku haya magaalooyin aad ugu dhow caasimadda waddanka Itoobiya. Itoobiya waayihii ugu dambeeyay waxay martigelinaysaa dagaalo qaraar oo u dhaxeeya xoogagga Tigreega ee soo laba kaclay iyo dowladda waddankaas waxayna u badan tahay in dowlad deegaanka iyo deegaano kaleba uu gaari doono dagaalkaas haddii caasimadda gacanta ay ku dhigaan xoogagga Tigreega oo xilligaanba dagaalo qaraar Abiy Ahmed doonay inay kaga saaraan caasimadda uu kaga sugan yahay dalkaas ee Addis Ababa waana meesha ugu dambeysay oo ciidamada Itoobiya weli ay ka dagaalamayaan.